بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدا أنه كوضا ورقبنه قبل كالصول حرونتي سمقالة اللاسعانات وحمد دبل كل هذا قاركونا ما كباب بدل شوقي حبنا قلو الزراعة قدوميها قراها وكيلة جمهورية الصوماليلاند taliyaha ciidanka qaranka iyo saraakiil la socda waxa ay u socdeen kulankii ugu dambeeyay golaha wasiirada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo soo xil saaray in arrinta hadda ka taagan magaalada Laascaanood ay maxaan ku dhahday hawsheeda ay galaan guddidaasi intaanay soo anbabixin waxa xiriir la soo yeeshay waayeel siyaasiyiin iyo waxgarad doonayay inay wax ka taraan waxna ka qabtaan dowladana kala howlgalaan arrinta maxaan ku dhahday gobolka Laascaanood talooyinkii odayaashaasi ay soo jeediyeen iyo wasiiradii ugu soo horeeyay kasoo qayb galay inay halkan yimaadaan 28 bishii November diiwaangelinta kasoo qayb gali lahaa xaaladuna ay la kowsatay talooyinka la soo jeediyay waxay ahaayeen in ciidamada amniga joogay ay magaalada koonayaasheeda iyo maxaan ku dhahday dawladda ay u joogaan ciidamada maxaan ku dhahday isla ciidanka qaranka ka tirsan ay gudaha la soo geliyo magaalada Laascaanood si amnigooda u hayaan taa la ogolaaday madaxweynaha markii ay la kulmeen waa la ogolaaday sababta loo ogolaadayna ay ahayd iyadoo la doonay markaa in lagu bambaaniyo laguna dejiyo xaaladda maxaan ku dhahday magaalada ka taagan arrinta ku xigtay waxay ahayd in halkan shirka laga abaabulo shirka markaa badankoodii marka laga reebo mid iyo laba ay guddigood maxaan ku dhahday ay joogaan aanay joogin Somaliland gudaheeda aanay ku jirin isimada ugu badan oo joogay Garowe iyo qaar meelo kale oo deegaamada maxaan ku dhahday beeshana ay degta joogay in loo soo ogolaado inay halkan wada yimaadaan sababta taa loo sameeyay waxay ahayd in la raali geliyo waxana laga gaashaanto cabashooyinka jira inay wax ka tarto go'aamadaas laga qaatay garaadadaas iyo isimada imanaya markaa waxa ay noqotay in ay magaalada soo kaxeeyaan oo ay soo geliyaan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland arrinta imaantinkoodii waxa ku soo dhex dhuntay oo yimid dad fara badan oo ma ka tirsan maamulka maxaan ku dhahday Puntland maamulka Soomaaliya waxay iyagu u bixiyeen SSC Khaatumo oo ay dhahdeen jigjiga bariga dhowta lagu soo aasaasay dabadeedna halka iyagoo calamadii Soomaaliya sitay yimaadeen mararka qaarkoodna hodelkaanu ku jirno garaadada qaarkood marka ay hormarayeen rasaas aad iyo aad u fara badan bay maxaan ku dhahday ayay nagu rideen xubnaha golaha wasiirada iyagoo madaxweynahana la sheergaraynaya iyo golahoodii ay ka tirsanaayeen gudoomiyaha golaha wakiiladana ay wada joogaan oo ka wada tashanayaan waxay ka indhaqarsadeen waxyaalaha maxaan ku dhahday la sameynayo inaanay waxba ku darsanin ay ka dulqaataan maadaama loo socdo wado weyn oo la doonayo in lagaga hadlo amniga dhidibaw-aasidiisa iyo maxaan ku dhahday adkeyntiisa iyo dareemada siyaasadeed ee maxaan ku dhahday la qabo in hawsheeda wada tashina laga yeesho la isagana yimaado isla markii golaha wasiirada uu yimi isimaduna ay yimaadeen guddi 3 ay magacaabeen golaha wasiiradu waxay go'aan qaateen inay kulmaan wada tashi ku kulmaan garaadadu sidoodaba way diideen inay nala kulmaan guddida 3 baa hal mar nala kulantay
waanu wada hadalay maalin dhan baanu wada hadlaynay annagu haddaanu golaha wasiirada nahay tale waxaanu kusoo jeedinay wadahadal guudna inay intan inoo noqoto isla barahaantaana inaynu yeelano iyaguna ay guddi iska soo xulaan annaguna aanu guddi iska xulno dabadeedna aanu isu nimaadno wada tashi isugu nimaadno wada hadal isugu nimaadno wada xaajood isugu nimaadno xaaladda si iskuda macdamaa aanu meel wada joogno aanu wada qiimeyno guddidaa dambe iyo isku soo noqodkiina waa ay diideen dadaal fara badan waxaa sameeyey guddoomiyaha golaha wakiilada oo la kulmay garaadadana arkay hal mar labaadna ay u suuro geli weyday guddidana mar iyo lababa ka badan ba arkay annaku inaanu saragnana abiilka iyagii maxaanku dhahday ay u geeyey taasina way suuro geli weyday qolyaha dabadaha ka yimi iyaga laftooda oo aanu codsanay inaanu saragno may noo imaninoo ismaanaan codsan hadda iminka ugu dambeyntii shalayto waxay ku dhawaaqeen isimadu inay soo saarayaan go-aan maantadan hore waxay u sheegeen oo u iclaamiyeen in ay dagaal la sameynayo gadaasha dambe fariimihii noo kala socday iyo waayeel fara badan oo nabadoon ah waxaa muuqatay in ay ka saarayeen oo yidhaahdeen arrintan nabadda waanu annakuna waxbaan qayb baanu ku yeelanaynaa hase ahaatee fadhigii saaka ay isugu iman lahaayeen waxaa kasoo hormaray saaka 5:00 iyo barkii subaxnimo in ciidan hubaysan oo tignika wata oo hoobiyayaal wata oo baasuukayaal wata ay weerareen qaar ka mid ah xeryihii ciidamada qaranka ciidamada qaranku ilaa iyo hadda way iska caabiyeen xeradoodiina may dhaafin ilaa iyo imika xeryahoodiiba inay ku sugan yihiin waxa weerarka wada ilaa saacadan imika anigu aan hadlayo ciidamadii ay garaadadu soo abaabuleen ayaa weerarka ilaa iyo imika wada waxa si bareer ah u hadlaya oo maxaanku idhahday miidiyahoo dhan ku jira garaad jaamac garaad cali oo la ka kacay dagaalamay ayaa maxaanku idhahdayay ku jira waxaa ku jiro de isaguna le maxaanku idhahda waryaana nabadda ha la ilaaliyo garaad jaamac garaad ismaaciil ayaa le maxaanku idhahda nabadda ha la ilaaliyo garaadada qaar goobta la yidhi qaraarka lagu soo saaray mabay tegin ayaanay tegin qaraar baa la yidhi way soo saareen miidyuhu ku jiraa qaraarkaa bay soo saareen garaadadu umay dhamaystirneen waa 1 waa 2 goobtii maxaanku idhahdayay shirku uu ka socdeen laguma soo daynin waa 2 waa 3 guri gaarabaa maxaanku idhahdayay lala tegay waa 4 qaarna maxaanku idhahdayay shalay taabay ambabaxeen qaarna waxaaba la leeyahay hadday xidhxidhan yihiin oo la doonayaa inay ambabaxaan dagaalka saaka ujeedadiisu waxa weeye waa kii markii hore ee ay yimaadeen qaarkoodna aanay imaninba ay ku dhawaaqeen in dagaal lagu xoreynayo laascaanood cidda laga xoreynayo aan la garanaynin kii unbaa maanta maxaanku idhahdayay lasoo dedejiyey oo nasiib daro baaqaas walqal iyo duco waxaa looga dhigay xabadda saaka dhacday ayaa looga dhigay maadaama barnaamijka maxaanku idhahdayay dowladda somaliland horena ay u sheegtay mar walna barnaamijyadeeda siyaasadeed barnaamijyadeeda maamul barnaamijyadeeda difaaca qaranka ay ku jirto in 1 nolosha reer somaliland iyo siyaasadda dowladda lafdhabar ay u tahay arrinta nabadgelyadu maantana waxaan ku baaqaynaa in la ilaaliyo nabadgelyada waa 1 waa 2 in xabadda la joojiyo ciidamada in xabadda laga daayo ciidamadu aada iyo aad bay u dadaalayaan in xabadda laga daayo ciidamaduna dadkooda way bambaaninayaan iyagana xabadda way daynayaan wixii arina
bini aadmigu xabad kuma wada hadlee afkuu ka wada hadlaa ciddii tala haysaa iyo ciddii arrin haysaa nabadda la isugu yimaado aada iyo aadna waa mahadsantahay guud ahaan dadka shicibkaa guud ahaan dowladda somalilan guud ahaan iyo gaar ahaan ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan inaynu labada gamcood isugu tagno isugu geyno inaynu nabadgelyada dib usoo dabaalo waxaan kaloo oo leeyahay aan farayaa oo baaq u dirayaa garaadada isimada qaarkoodna shalayta iyagoo xidhxidhan ay baxeen qaarkoodna la leeyahay maanta iyo beritiyo saa dambe ay baxayaan waxa aan leenahay dhaawacan dhimashada iyo dhaawacaba keenay dagaalkan saaka laascaanood ka bilaabmay in dib loogu soo celiyo nabadgelyo ayaguna aanay ka bixin aynay goobjoog noqdaan haddii ninkii ka baxa meel tegi maayo meelahay ka yimaadeenna waa la garanayaa waxaana ay noqonaysaa markhaati furo inay iyagu yihiin ciddii dagaalka abaabushay iyo fulinaysa waa mahadsantahay